السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إدين سلامة في ملداعد يدقن هبين قروح بدن فضلا سبسكرايب لايك كومنتي معاك بدن هوس دع اسكي صوصي وأنا جو أهدي قدقن أصحابي وحنا إذن الله عافماتكم في رسالة بليس أم بليس فيديو غانيت نميسو because وحنا كان في عدونا واحد بدن عبد الدقيقة دقن كم حوسه في الديستاي أصحابي وحنا ربا هرتا سبسكرايب ku dadaala dadka nagu cusub aad baan u soo dhaweynayna dadka nala joogana I love you mar walba waan jecelahay like ma sha Allah naga taageer asxaabta family daacad degan kor u qaada heli hoo u ahaada thanks waa mahadsantiin ashir ilaahay haniga siiyo asxaabta cawd horta waxaan rabaa sheeko iyo qiso aniga leeyahay sheekay oo inta cajabisay oo isti maskaxdeeda tacajabta cajiiban ay ku noqotay ina niso bandhigo iga dhageysatina wax badan ay ka fahantiin تعجبت مسكعيده ما فهمتي وقصه dhacday waa qiso sax ah marka asxaabta horta qisadanayto maxaa bukala waa ka samaan qisada rabaa insha Allah inaan guud gal fadlan subscribe la'aan ha fiirsanin haduu ku saarnay subscribe dhac ku sii deeqadigan sheekooyinkii qisadii xanahay mar walba niga balan qaaday way haysaa waana ka dhageysanaysaa nuxurkiina commentigiina waa arka jazakallahu khayran jazaa marka cawd qisadan waxaan guud galayaa waxay ku dhacday gabar joogto magaalada Muqdisho la jafooyano because aan Muqdisho ku noolahay maano bas gabadha waxay dhahdaa qisada ii sheegtay iyada kuma dhicin laakiin qisadaas ay tahay goobjoog ku ahayd alaashan wax adag ugu dhacay wax goobjoog markay dhacay dhacdaas ay ka sheekeen karta ay taagan tahay aa jirto marka waa fahanteen amalina asxaabta qisadaas waxay ku saabsan tahay nina guursaday dhahday 5 sano qaba 5 sano markuu qabay qadar min indillah wax maysan dhalin waxee maysan dhalin 5 sano kabacdi xaafadani tagnaa from مدينة إسكان عملية دقناين ويسوق جورين حافظة كله يسوق تجين حافظة لبقى 6 قلة كتالة لبقى أيدا ودجي هالقلنا حودين ويد إسكابولا وركي ورث في عمود فهمتي تفهموني نعم بس قدر من عند الله حاجروا اسمه كي سودك هذه 3 مونث دقنتها 6 بلاد عملية دقنتها قبل أوري قاطع الحمد لله أو فرحة بكويس 5 سنة wax maysan u dhalin markay uur ay qaaday 5 sano xaafad kale deganayeen way soo guurtay guriga soo degtay alxamdulillah 3 months 3 bil markay joogtay uur ay qaaday ninka aad ugu farxay oo ku riyaaq alxamdulillah ma sha Allah tabarakallah cunuga koowaad u dhashay cunuga labaad u dhashay kii saddexaad u dhashay kii afraad u dhashay 3 wiil iyo hal gabar ma sha Allah ayda oo heeso wiil ninkeeda wuxuu xoogsan jiray mooto bataaj alaasha mootada tukleeda yar oo ka shaqeysan jiray xoogis maato ahaan bas ilaahay amarkiis maalin asoo mootadiis ku xamaalinay ku shaqeysanayo anaag wadada taagan mootada joojisatay aboo isbitaalka saaraba isii qaar okay dhahay wuu qaaday mootadii fuushay aboo isugay dhahday waxyar dan yaraan leeyahay inta ka dhameysana police isugu dan way celinaysaa aniga badan xataa iska dhaaraan koob dadka dhaho isug because dan yar leedahay qofka macaamiishku oo bogtay marka dambe waxa leedahay police waxay isug inta danteeda ka soo dhameysanaaya had emergency ku soo noqonaa marka gabadhii waxay tiri aboo waxaan jeclahay inta isbitaalka danteeda ka soo dhameysanaay isug waxyar waay lacagtaadana waa ku kordhinaa waxyar ee sabr wiilka ayuu ku dhahay isbitaalkii ay gashay isbitaalka waa fall وقاعدة نكوي فورنا الساعة الإسبتال مركز جتري ساعة كدب هذه الماء وإسكت ديار سنة قدر من عند الله سالة مركز صار علمي ويرش هذا علمي إيش ندت كنا مرسوين كده لين حيث إنك بناقو جو وحقول شيء جاي هلا يقول تلفون كلا عبودي تان تا الله بناقة تاجنها بدها سوق الله وسوق لا سوحري ده ولا سوحري مركز حيث إنك سيت إنك يجوا نينكاس يجوا بناقة تاجنها هلا يقول markuu soo galay bonaagta ku dhashay waa kana wiil ku dhashay aniga maalintii oo anagu mootaan gabadhan ku keenay naagteedu ma ahan mana qabay wax nigiin aboo waa ku dhalay dhahdo wiil ku dhalay ay goorma israacayna soo xaafad ima geelays ninkii waaga bari ila kul xal wuu yaawonahay wuxuu dhacay ma waalantahay aniga ma ku qabay wada cilaan ka soo qaaday adoo taagan waa ka shaqeysanay
nasiibka labada niskaan keenay waay ilaa waa ku dhal ad majnuun ma toona ilaa kul xaal lacag isbitaalka bixi aboo israacina wax manisha oo dhahnaa taantii habeen ani ma qabi maalin ani ma qabi meeshii muran badana ka dhacay yaa murmaayo ninkii mootobatajka ahay inaagtii uu jidka ka soo qaado wayna ka shaqaysanay lacag u tuurto ninkina afar cunuga u joogto gurigiis maasha Allah u dhaqmooyaa ka bacdi dhahan dadkii meesha askariya loo keenay wuxuu dhahay adiga fiiri naagta cunuga ma dhashay mayo dhaan cunuga ma dhalin subhanallah cunuga ma dhalno dhaani afar cunuga dhalay laakiin cunuga ma dhalin jidkaan ka soo qaad ilaahay iga saray maanta waliga igu horeysay arag naagta okay haddaan adiga dhalin dhiiga oo xalqaada oo dhalashada la qaada calaashan oo inaa dhashay in kale aan xaqiijina okay oo dhahay waay dhiig dhalashada dee la baaray ninkan cunug muusan dhalin suu sheega waa sax jid cidloo ka soo qaaday u joojisatay mootada soo raacday waay ma dhalin ma dhalina lahay midda kale intana waxaa lahaa adiga ma dhaline ilmaha dhasha u baahannaha ma dhaline ma dhaleysaa taala wax ma dhaleys ninka wuu yaa war maalintii oo dhaani 3 wiil hal gabar ay joogto oo dhahay waay ma dhaleysaa tahay ay leedahay ilaa kul xaal waxaa lahay adiga ma dhaleysaa tahay cunugaana ma dhalin naagtaana beeni kaa sheegta Allah iyadana wixii la marin kara oo bansabidkaas loo mariyaa cunugeeda balaa cilay ka keensatay adina ma dhaleysaaba tahay hormaayo dhaani ilma ay joogtay blaayo meeqo cunuga ay dhashay ana waxaan ku dhalay 3 wiil iyo hal gabar ku dhalay afar cunuga maxaa ku waayay kale waa lagu dhigay maanta isbitaal jooga maxaa lagu dhigay ilaa kul xal lagu dhigay ku imaana 3 naal lagu soo daray oo ciidana lagu soo daray guriga imaadeen naagti afarti cunug wiilka iskaabulada la degnaa xabsi loo taxaabo horta koo isbitaalka loo taxaabo isbitaalka dalagay dhiigi wixii laga barbaaray naagta ilmaheeda iyada dhashay laakiin aabahay muusan dhalin wiilka kale la degnaa iskaabulada la baaray asaa ilmaheeda dhal waxaa la adima dhaleysaa tahay saa ku sheegna waaye ilmahan adima dhalin ninkaana ku dhalay afarti cunug aabood waa kana wiilka ma kula degnaa afarti cunug aabood waa kana markaas uu madaxa gacanta inuu saarto wuxuu yiri alla guriga nihir qeyr u yeelan shar u yahay awal because ana 5 sano wax ma ii dhal maanta gurigan soo deg 3 bilood markaan joogo bishii afraad dhalmada ii bilood ilaa hadda ku dhex jira ilaa ayada ma ii dhal hal uu sameeyay naagti iyo ninkii xabsi isla oo ninna buu waashtay ninka uu ku dhuftaa Allah qabasho ma laga tan bacyaasha arooriyo ma dhici karto meel ka soo taagay maanta maxaa ku hayna ma dhici karto ciidiisa quraan saar inta laga mar kana laga mar famil daacad idiga ninka muxuu ku waashtay ma dhici karto ninka ku waalna ninka afarta cunug dhalay oo isbitaalka Allah ma dhaleysaa tahay ma faanta asxaabta horta qisada way murug badan tahay wayna cajiib badan tahay ma faanta wallahi waxaan leeyahay ilaahay ha noo xafido qof walba farjigiisa Allah u ilaaliyo ilaahay waxaan leenahay wax xunna ma tis insha Allah ilaahay idinkiis because waa kala ilaahay ceebtaada mar haduu asturo yawmal min al-ayyam ceebtas banaanka iimaanay maalmaha kamid leema jeeda ilaahay uu ku jeeda ilaahay wax walba uu arkaa naagtan waxay tiri gal hal cunug ay dhashay 2 3 4 yawman min al-ayyam wuxuu ilaahay ku kashif ceebtaada sikan ninka iska xamaalanaa oo qaada inay dhahdo dhab asaa iga dhalay waraana ma dhalane uu ceebta ilaahay fanjaq uu kashifay marka family qurux badan family idaacad degan aad idin jeclahay mar walba waxaan jeclaa sheeko alaal sheekada maqlay qisada maqlay maskaxdayda inaan ku haysan lahay inaan ila wadaago fadlan please share gareeya fiirsada dhameesta nacaawiya Soomaali ayaan dad ku nahay iniga ayaan dad nigu nahay maanta family kale aan fiirsanayna male please Soomaaliya nacaawiya Soomaaliya garabna siiya I love you too much ayaan jecelnahay family qurux badan family daacad iyo degan waxayna igu codsanayaan kor inay u qaadiro sheekadeen taxanayna ahaan doonta saan iga balan qaado waay maskaxdeedu wixii ku buux iga faa'iideysta please and please waa idin soo bandhiga waxa u jeedo kommentayaal badan ay dheeseen reer dumiska waxa ka dambeeyo nimanka marka asxaabi aadan u jeclay ma sha Allah fikradiina waxay tahay dhiirigelin waxay tahay farxad commenti wax ala aqalla
عقلي هذا صاقل كومنتي كسو بوحي اوكي واكو فرحسناي مر والبا كومنتيغينا وا اقرستا واكو فرحا قفك ايسو قردير جلين ما شاء الله واجع الله قفك ار ايسو قرو واكو فرحا ما شاء الله كيب جوينك marka ay dhahdeen aad baan farxaa hal laba habeen saddex habeen youtube-kayga hada soo fadhiisan soo caajisa ugu dhacay cawad markaan fadhiisan soo happy ma sha Allah ana idin jeclaan Soomaali ha noolaato Soomaali guul iyo gobonimo u rajeynaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.